shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhacdo saaka ka dhacday Sinai runtii Adeer Axmed ayaa meeshaas askar ka tirsan hay'adaha ammaanka ka tirsan oo ciidanka booliiska ugu horeeyaan ay jirdil ugu geysteen arrintaas kama turjumayso sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed iyo qofka muwaadinka hadduu dambi galo sidii loo soo xiri lahaa iyo booliiska Soomaaliyeed iyo hay'adaha ammaanka waxay ku tahay ceeb sidaa daraadeed waxaan soo xirnay halkan afar askari oo kamid ahayd geysatay dambigaas jirdilka adeer u geysatay hortiisa aan keenay isaguna uu qiray inta maqanna inaan ku soo dari doono oo cadeynayna maxkamadna in la geey doono halkaasna shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay ka arki doonto qof allaale iyo qofkii ku xadgudbo qof muwaadin oo Soomaaliyeed si sharciga ka baxsan in loo tacaali doono macnaheedu maahan shacabku inay fasaxan yihiin midaas shacabku waxa laga rabaa in hay'adaha ammaanka in la shaqeeyaan wixii si qaldan u dhaqma ninka odaga waayilka runtii macnaheedu ma ahayn hadii la xiro war adeerna kaale ku fileed adeerna kaalana raaca ku fileed waa la xiri kari waa la soo wadi kari waa la hadli kari in la garaaco inta la dirdilo 3 qof iyo 4 qof iyo 5 qof inta isku tagto saa u galaan waa arin foolxuma oo ka turjumaysa maaragtay foolxuma ka turjumaysa sumad xumayn ciidanka booliiska Soomaaliyeed baarisan ku wadnaa waana baarina askartaas meeshay ka soo galeen booliiska iyo sababta keentay in adeerkan sida u jirdilaan oo u qaadaan oo u jiidaan iyo dadka kale oo maqan diban ka soo xir doona kana baahin doona kana lana wadaagi doona hay'adaha garsoorka ee awoodda u leh shacabka Soomaaliyeed waxaan mar kale waxaan u taaganahay inaan ammaankiina sugno maalin hameen daraar iyo subax qofkii xadgudub ku geystana inaan sidaan oo kale u soo qabanno in horkeeno laakiin waxa la rabaa inaan nala shaqeysaan runtii waxaad ogsoontihiin caasimadan waxaad ogsoontihiin caasimadan oo maalin kasta qaraxa iyo qofku dhimanayaan saacad walba qawaarijta iyo cadawga iyo askartu dilayaan ayaan ka nimid hadda waxaan maraynaa in qof la dirdinan la soo qabto qof maaragtay dhibaato geystana shacabka inta la horkeeno bulshada in la horkeenan ka shaqeey ayaad u jeedaan waxaan rabnaa inaan midaas wada ilaashano waxaan rabnaa inaan amnigaas wada ilaashano dad aan danta ummadda Soomaaliyeed iyo danta amniga shacabkan ka turjumaynin inaysan shacabka iyo dawladnimada in ka sikin horkeenin waxa la socotaan ogsoontiin shalay inaysan maanta ahayn waxaan ka yaraada qaraxi waxaan ka yaraada dilki waxaan ka yaraada qawaarid dibka geysanaysa waxaan ka yaraada baadi ay geysanay waxa yaraada askartu halkay budka iyo garacaysa ka geenay in jirdilki iyo xabadii lagu fajiray shacabka marna ma aqbalayna in sidaan oo kale loo sameeyo laakiin waxaan rabnaa shacabku inay xuduudda amniga inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka oo aan laga soo dhaxqadaynin oo aan dad aan u turaynin dalkan iyo dadkan ujeedooyin kale lana inaysan ka soo dhaxqadaynin waliba waxaan la hadlayaa dhalinyarada aniga da'aadayda horena waa in la hadlay haddana waa in la hadlaa hoosna waa in kugu sheego korna waa in kugu sheegaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi kuwa idin shirinaya ee banaanbaxa gala indhahaya ee hay'adaha ammaanka ka hor keenaya inaysan dan idin wadin 20 sano ka hor waxa kamid ah hogaamiyaashaas 20 sano ka hor kuwa aniga dadan kamid ah ku qanciyay inay inta qor qaataan dawlad ka hor yimaadaan iyagoo dana gaar ah oo ujeedadoodu ay ahayd inay madaxtinimo ku gaaraan ujeedadoodu ay ahayd inay dadka ku xukumaan 5,000 oo wiil Soomaaliyeed isku dilay inay madax noqdaan maanta 20 sano kadib oo anigii maalintaas qorga ii dhiiban aan garaadsaday inay maanta haddana waji kale inta u soo bedeshaan ay shacabkii qaldaan inay isku dayaan laga aqbali maayo shacab wax ka aqbalina dhalinyaro ka aqbalina shalay haday qaldeen jiilal kale oo 5,000 oo wiil Soomaaliyeed inay xukun tagaan ugu tageen maanta shalay ma ahan waxa la rabaa inay ka fooljignaataan waxa la rabaa inay ogaataan dadka in ku diraya annaga hay'adaha ammaanka mas'uuliyadana saaran waxay tahay shacabka qof kastoo dhibaateeyay inaan soo qabano shacabka ka horkeeno ayagana waxaan leenahay shacabka ha isku aadinina bulshada ha isku aadinina meelaha aad ku dhuumanaysaan iska daaya aragtiyadiina iyo aragti siyaasadeed leen kuma haysto laakiin ammaanka inay qalqalgelisaan leen kaga ma yeelaayo hadday jirto waqti inaad dadka la hadashaan oo saraakiisha la hadashaan oo dadka kala shukaamisaan waqtiga lama joogo maantay shalay maanta maahan 22 21 lama joogo annagu ilmaha iyo maamooyinku dhex dagaalami mayno amniga inaa ilaalisaan leen ka rabaa qodiina inaa ka ilaalisaan nabad kumaadna shirteen haddii cadawga qawaaridta ay joogto ilmihiina maysan joogeen nololna maysan jirteen haddaan cadawga ka adkaana inaad shacabkii ka hor keentaan dawladnimada oo amniga aad faraha ka bixisaan leen kama yeelaayo mana inka aqbalayno wabillahi tawfiiq